kamid ahayd wariyaashii Dubai doorashadii one man one vote ee ka qabsoontay Puntland waxyaabo kale oo la yaab ah waliba kumid ah booy baay يعني أريد أعمل جلجلة ميل ولا بنت بدن أباي ولا أعمل ولا باستعمال أنت بدن دمر استعمال كنت هاي سفر كورن محاي سامين كولا هاي سفر كاي بتلانات كنتي يعني وريالك ميرو إنجابين سنون نكون ميك هذا الهاي ورينو عن بتلان مكوجا إنه ميك هذا كده صحفينتي إذا حتى ولا بنيو هلما من الشقوين كيو هاي سنة حتى يعني الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت وحن ورئيس جار لي لندن محمد شريف oo ah wariye ka shaqeeya radio Taljir Maxamed Shariif waraysi gaar ah kula yeelanayna hadii Allah wada leedmo ku soo dhaw buga Maxamed Jaac Maxamuud eedan ka dhaw horta buga dhamaan qaybasho doonada bar bulshada kalata runtii sida sheegtay ha waliba aan ku safaray Jubaland doolow gaar ahaan gobolka Gedo ayaa ku safaray runtii waliba na safar shildoon ka maray markaan diyaaradda meel ku reey Muqdisho shantii safar shildoon Puntland ku gali waan runtii eedeedana lahayn dhawaay boqolkiiba boqol waliba kulme shacabka reer bari dhamaantiyo hadwaayo fayla iyo waliba soo kala martaqaad eedeedan fayla kulme Maxamed Shariif soo dhaw waxaad ka timaaday Jubaland Gedo gaar ahaan magaalada Doolow maxaa kugu la yaabka badnaa ama safar shaqaad ku timid Puntland adigoo u shaqeynaya radio Daljir waayo waxaad ka mid tahay sahanka Daljir teamka ku shaqeeya ka waran safarkaagi aad kaga timid Doolow ilaa Puntland maxaa kugu la yaab badnaa maxaad soo aragtay Puntland se ka waran soo dhaweyntii wanaagsaneed iyo maaragtay qaabkii aad ula dhaqan oo ay kula macaamileen shacab weynaha ku nool Puntland runtii wallahi horta saa sheegtay ha Doolow ku safari walyaabo inkiyaabka badnaay marka dibunka noqoda Puntland markaana kooy waliba na kumid ahaayay garoonka Korean ku dego Puntland waliba sahay guruwa walyaabo inkiyaabka badnaay aan kala kulmi garoonka dhaxas waliba haay gabankum yani ninkan yariiska wiilkan amal oo meelisan raasan gabankum ee walyaabo kale oo la yaab ah waliba kumid ah booy baay يعني أريد أعمل جلجلة ميل ولا بنت بدن أباي ولا أعمل ولا باستعمال أنت بدن دمر استعماله كونفرتس مركز سلام فيريو مركا رنتي أدي أنا هين روايين شعب كره Puntland لما بلوت كل دوات سفر أو كجودي شري ديجانا ده Puntland جوداش والله ولا عقبة أم ولا لبعتوي مرتس عشان كلمي ملا مجال كستان سدنا سقروح بدن يولي با سكرام يسنا شرف له أنا الله هين كرواية أنا قيبت دلتشر مايجا أنا نحل سعرنا Maxamed Shariif oo deegaano badan baa ku safartay oo kamid ah Puntland gaar ahaan Mudug iyo Nugaal iyo Bari kolkaad safarka ku jirtay ama muddadii aad safarka ku jirtay deegaanadee kula yaabka badnaa ama goboladee aad maaragtay wax la yaab leh kala kulantay ama shacabkeedu ay ka duwan yihiin shucuubta kale ee ku nool dhanka koonfureed runtii horta su'aal eedeed mafaylo in la isweydiino mudan runtii deegaanada يعني أنا كسفراي deegaanada koonfurta walyaabo ka shil duwan yani weydiidin runtii marka silam fiiriya walyaabo far badan ka shil duwan deegaanada koonfurta iyo deegaanada Puntland intaan qaybo shil duwan ku shal maray tusaale ahaan hadda markaan gaalka ciikooyay meel raay lamada xaniil ka rooge yorta yani ka dhigay heeg koonfurtaasi markaad roogta amal يعني وليابو أو بهالك إيه أو الأرجاس مله أو يعني ديجان هبل صدو ديجان أستان تصلي ديجان صدو ديجان نوعاسو لا يروح هرت مله يو اسكوميد إيه يعني شعب شو اسكوميد إيه ميلون وليابو كله وجاب كن كل هاي أنا كاري وليبو كوميد هاي أنا مركون كتبنا قال كعية حرف ميل لسان تصالحان ديجانكم هذا تهيب اللي دقة ديجان كاس تهيب اللي دقة ديجان كاس يعني مين إصدار دافع عمل marka walyaabo inkiyaabka badnaa ku mid tahay tii oo deegaanada Puntland ku aragay sidoo kale maanta guriga ku tabaay gaalkacay aan safaray yani shirkada maanta guriga yani aan argo shirkado oo yani shilidiyo meel raay alaabta inta la dhiibada la ka aaminayo tikisada diyaarad amal tikid adan jaradaas waliba ka qorna balka qornata oo meel raay warqadooshaad akhriisa safarka inta ka xilada meel ku dhamaadaas ki walyaabo deegaanada inta badan ka aragay ku mid tahay shacabiyad ahaan marka silam fiiriyona runtii horta
ummada Soomaaliyeed oo dhan simin isku mid weeyeen horta waa la kashal duuyin male waa hadii diinta kalaamka la ilaha illa muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam la ka wada simiyay waliyaabaha hadda saasan shal weyn oo kashal duumile dhanka la hajado walan ku hayna yani system show caadi kala soo isku mid leh horta walweynaha hadda aan aragay yani shacabkuna shacabkaasna haangeen horta leero oo saas horta male marka deegaanada Puntland runtii walyaabo kale oo yani noo ku duuyin waliba kumid magaalada oo hamiin safaro oo opsan injirna oo la isku baashalo oo wariyo isku socota caqabada kan kula kulmaana shacabka yani si isfahansan lan araana dadkaas yani xaasidin iska lan araana yani isfahansan shucuurtii marka salan fiiri dad oo waliba muuqdaan inay isfahansan dhaxdiyo oo cadowsha hal meel ku jeedaan maxamed shariif waxa tahay wariye ka howlgal raadiyo daljir qaybta afka mayga wariye intii muddadii aad joogtay Puntland labada bilood ahayd ka waran caqabadii kugu la yaabka badneed marka ma aragtay war saxaafadeed lagu diro aad banaanka ka doonto marka aad xaruntii ama meeshii aad wax ka duubi lahayd aad warka ka qaadi lahayd tagto caqabad noocaya kala kulantay dadkii ma aragtay meesha joogay waayee adna mayba ku hadlaysa iyaguna maxaa tiri xogaa isfahan waa adagna inuu halka ka dhaco way jirtaa marka maxaad kala kulantay halkaas runtii horta marka la era war saxaafadeed yani marka oo la keen diro yani warar magaalada amal qobada su'aalo waliba andiyasay yani wariye oo waliba taha barnaamijyo iyo war saxaafadeed la diro caqabado inka badan dadka aad wareysida labadaas ma kumid hayte runtii horta inta badan oo wareysida ana sameeyo ama war saxaafadeed magaalada aan raadiyo horta caqabado inka badan waliba dadka inta badan ma isfahmaysan waliba waqti qaadaday inaad horta qofka ku dhaadhicida danta adalata iyo walaad aan socota iyo aan ujeedada meelan koyti waayo qofku waliba waxa ma ka fahmi karo in kasto dadkan wareysada in badanaayeen dad maylan isku badanaayeen dad yar sida qardho oo kala ee magaalada Boosaaso xitaa jarti dad oo maxaatiri oo may iska dayaan eray yani ka wareysadeen يعني ولب وها قفك إنه سكيل قبصة بس هرتو كحكته أو يعني سكيل فهمه ولي أبو أذوق هذا الهايت مركا وقت بدن مركا تجري ذو قفون كرداد عيكرته هرت عقبة سوين وأنا كل ما يملها هنا أنت يعني ورك برامشان مقالة أنا كل أحسن يعني كل هذه عقبة هرت أساسا كوين وأنا كل ما يملها هنا مر برشة أو يعني مركا قفك يفهموا هنا أن هذا الكوكو جاب سوق تبو محمد واحد كم بدهيت ورياشي دبي دور شدي ون ما ونفيت كخبصون تبتلان وليبا واحد كم بدهيت gobolka karkar degmada qardho mid kamid ah wariyaashii ka tabinayay taasina maxay caqabad kugu lahayd oo aad kala kulantay maalintii aad tabinaysay doorashada wal maamul fooyd oo ka qabsantay anada Puntland doorashooyinki iyo caqabado waliba kumid haayay saxafiintii tabiyaasi doorashooyinki ku dhiyayeen one man and one vote ka haay oo ku socdeen qardho iyo ayli u feen ku socon kumid ah waliba qaybta waliba ka jaray qardho ku tabiyayeen kumid tahay runtii maalintii ay horto waliyaaba ajiib meel ku dhiyay waliba kumid ah ayana wariye VOA shaqayaas Zahri wal Iran ushi iyo kumid ah dadkii yani maalintaas meel iyo qofsadeen kaamirooyinka marka la adeegsaday aan meel walba la surmay si baraga haytan meel waliba ku socday geeka doorasho on markaasi yahay eto qof i cod يعني وريالك ميرو دنجابين اسنو نكون ميك هذا الهاي ورينو عن Puntland ما كوغا ان ميك هذا كدان صحفينتي ايفن حتى ولي بانيو هلما من شقوينكي هايسن حتى يعني قف كست الا هندكا ولا ان ايرو markaasa jaanis lisi adolay marka dhameeysadii oo warbixintii ana diyaarsadii iyo dad kumid ee saxafiintii ay warsayniyo meeyat yani lahjidada ka hadlaas inuu lahjid ma way koonfurtaas magaalooyinka Baydhabo iyo inta badan ka hadle marka dilti qaybta ma wariyaha qaybta ma ku hadlay adamiya nin kalma aan leeyahay miyaha marto isfahan wariyaha horta inta ka badan meeloon iska barani meelo ku mitaaytay saxafiin badan oo reer Puntland oo doorasho iska baranay jirta yani misbarada lahayn hadii maxaatirka ka hadlaan ka hadla misbarada lahayn because of maxaatirka yani markaasi misra raadi lahayna oo minis muuqada lahayna qofku yani farmahay baha lahayna runtii marka
أنا لهجة سجوني أنا كهذا وريال بدنا يعني فريندس اللي نقدين يعني ويدين يعني أنت كهول جلاس ورباه أنت دلتير إنك السوق قف كسر وسأرجع ميكروفون كان هاي سد وسهاي ميكروفون دلتير كقرن وسهاي بتفربان شعف فربان وريال فربان هرت يعني سبب نهاية الهجد ما يكهذا لو شيء نصبرنا يكون متاعي تبرت والعقبة كله أنت سكوين مجرنا دور الشذ والبكمتها صحفيين تتبعي تتكاسو ميلس كبرنا حيفن حتى ضد مسؤولين وكمتها أو يعني مركيو أرجع إن الهجد اسمعك هذا اللي أرجع أو يعني سقروح بدن هرسر وإبراهيم شفلها كرديده ديرجلين بدن أرتنت بدن كله معي محمد سفر دير كدب waxaad safarkaaga ku soo gabagabaysay Puntland gaar ahaan gobolka Bari degmadiisa Boosaaso waxaad ka mid ahayd wariyaal garoonka Boosaaso ka tabinayay ciyaarihii ka socday muddadii u dambeysay koobkii degmooyinka gobolka Bari iyo deegaanka Galgala adigoo oo ku tabinayay afka mayga ka waran maxaad caqabado kala kulantay safar dheer kuleed waliba ka gororsay magaalada Boosaaso safaraan weydiiday waliba ku mid noqday saxafiyiintii ama wariyaalkii ama warfidiyeenadalkii tabiyaayeen qaybo ku mid ah ciyaaro runtii horta ciyaaro intii ka badan maxaa tiri ka wareysaday markii ku soo warbixintii ana garoonka ku diyaariyay oo ma haytay oo yani falcelin shaldun shacabka ama reer Boosaaso ka dhaqanaadeen ama Bari iyo koonfurta meelbiyo ka dhaqanaadaan idaliidud meelbiyo roogan yani iyo ku falceliyeen horta ana caqabad weyn saasan ma aragana fariin yani comment Facebook aad la qori ama hadii hada lahayti ay ama hadii hada lahayti ama waliba inta dhiirgelin inta badan waliba raayana markii la ka hadalhay hadalhayntu waa sharaf hadalhayo ka sharaf amal leere marka ciyaariyana inta ka badan maxaa tiri ka horeysada wal caqabada saasan weyn aan kula kulmayna ma lahayna runtii hal galab iyo malayan in ciyaariyo ma su'aal ka weydi laakiin maxaa tiri ka weydi laakiin codaynta ana ma ka dhigay marka ciyaarayoon soo kala wal caqabad weyn oo hadsaas ma lahayna ka waran maxay saameyn kugu lahayd safarkaaga Puntland aad ku timi maxaad ku xasuusan doontaa joogistii labada bilood ahayd ku sugnayd Puntland waliba yeetaha safar dheer kurid labada ahayd ma ka xasuusan doonta yani deegaanada Puntland ma ka xasuusan doonta yani may taariikh xagga laakiin noqdo doono Puntland ku xasuusan doonta yan haytay runtii horta waliyaabo fara badan iyada ku xasuusan doona markaana kooy hada koonfurtaas amal meeluun roogna gobolka Gida intan ka badan mal helo horta yani waliyaabo badan oo tulku helo hegelum ku helaan sida hada malayga oo habaysan oo kala meel inta badan yani bahal yaro meel la qood mushisada intan habaysan oo kala malka helo waliyaabo kale oo safareen ka xasuusan doona hada doolo oo kala iyo Gida intan dhaxayso inta badan ka safaraan marka aragaas yani laami oo raaxale oo yani sida Boosaaso Gaalkacyo Garowe Puntland Qardha Ufeyn lukun iska hiro laamiyalkaas quruxda badan oo kala ka xasuusan doona Puntland waliyaabo kale ana ka xasuusan waliba kumid safar Korea ana ka kooy runtii saxafiintii waliba ka xasuusadayona soo dhaweyn qurux badan safarkan safar Korea inta markan kooy ku tabay dhiirigelin qurux badan dhalinyaro fara badan oo saxafiin ana iska saano iska baranay iyo waliba dhalinyaro badan shacab badan oo sidiin oo qurux badan aan dhawaayeen yoona ka xasuusan doona taas waliba ku muhiimsan nabadgelyada yani koonfurtaas inta ka badan ma aragaas suxufi hameen safaro even xitaa maalinta la obsade waliyaabo oo ajibka ah ka xasuusan doona ku mid noqdo doonta safaradaana oo noona obsiyo hameen Gaalkacyo ku tabni ilaa Garcad oo dhibaateen ka aragna toosan saani Qardha hameen 4 saac hameen ma ku tabni Boosaaso 5 saac wala jarha galni wal caqabada oo ka aragna meeltiga controlka markoon kooyna saxafiintii waay isku galan neeri يعني وياباس دون ولا كحسوس دون والله بكميد إيه قف كبين آدم كأ أديبوس يعني أبص دري معنا مركوس ديجان كوس روج هذين الصحف وسي أو أبص دري معنا إيه مركوس ساد ميل هذا ودي مركوس ساد أبص إيه ولا سوس كبير ما يعني أنت ما كل دون هيك ما كل دون هي نقطة ولا بحسوس ده ديجان كوس كتابي السدوس كهاي إيميلوس روج مركز سريعة because of needs waliba ka dhiyaasay milhami waliba socdaasay 7 socdaasay marka waliba yani new milas ma sha Allah ay ogaa xasuusan noqdaas xagal aan noqdaas marka runtii Puntland shacabka dhaqan waliba laha
madagasan saarantiin meel raay marwalban hasan xasuusado doona deegaan kasta oo naseena magaalo kasta oo naseena dalidiid meel kasta oo naseena hasan xasuusado doona leena insha Allah runtii gabagabadii barnaamijkeena maxamed shariif oo aan ku sii siqeynaa ka waran dib dambe ama samaaragtay mar kaleeto mugu soo laaban doontaa deegaanada Puntland kolay shucuubtu waa kala duwan tahay xiise gaaran oo kugu lahayd Puntland dib adigoo xiiseynaya mugu soo noqon doontaa Puntland runtii wallahi noqdo doonto horta in yaani dib waxaan xiiseeya ma wali bal qofka system hilowtis ma dhamaadaas ila hadii uu deegaan yaani markaas uu siiba deegaanka uu siiba xiiseeyo soo xiiseeyo ku tabi oo uu salan ka dhibaatayna lan ka caqabadayna oo yaani uu soo waliyaabo dhibaatay uu kala aragna waayo sinama ku maaramo han xiise le mar le han xiise marka deegaanada Puntland runtii noqdo doonto meel far badan oo aan han xiise doona meel far badan oo yaani noqdo doonto inaan han xiisa insha Allah waana rajeeyaa in markale dib aan ka noqdo aan hawlo shaqo am wada ama aan dalxiis aan socdo hadii alla ka dhigo inaan markale kooy doona rajeeyaa marka insha Allah bidnaa kareem dhamaantaan shacabka reer bari iyo Puntland dhamaantiyo iyo dhamaan shacab koonfurta dhamaantiyo iyo nooli bala insha Allah safar dheer insha Allah kulli hadeer doon hub ilaahay ka raala noqda dadkuna yoona ma salaamayo doona dadkaas niyoona soo dhaweeyaan insha Allah yoona ku rajeeyo doon hadii ilaahay ka raala noqda waliya far badan insha Allah oo taariikhda xalgal in noqdo doona Puntland ka aragana yoona insha Allah aan ku sheekay doona nidaamka iyo meel raay waliyaabo quruxda badan oo markaas aan ilay aragtay insha Allah yoona aan ku sheekay doona marka insha Allah noqdo doonta to ana markala han xiis insha Allah